halkan ku soo dhaweyno Hani Shariif Macruuf qalasad Hani UK waxaa sharaf noo ah inaan caawa halkan ku soo dhaweyno fanaanadeena qaaliga Hani Shariif Macruuf oo Hani UK loo yaqaan saasama Hani ku soo dhawow Melbourne state Victoria ee wadanka Australia sharaf bay noo tahay caawa inaan halkan aan kugu soo dhaweyno waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan ku soo dhaweyno qalasadeennii qaaliga ahayd oo aan kala soconay miidiyaha meelo badan inay dhulkii tagtay joogtay waxqabadkeedii iyo hawlihii ay soo qabatay ee wada wanaagsanaa waxaan soo dhaweynayaa Hani Shariif Macruuf oo ah gabadh qaali inagu ah reer SSC ah dadka qaar wuxuu yidhaahdaa abti iyo laakiin anu waxaan leeyahay reer SSC weeye waayo meesha ku dhalatay deegaankeedu SSC weeyaan halgankana meel adag bay kaga jirtay waxaan ku leeyahay soo dhawow Melbourne ku soo dhawow waxaan ognahay oo aan la qarin karin halgankii dheeraa ee aad soo gashay kal iyo laabaha oo aadan qarin waan kaaga mahad celinaynaa barakaatu habarina aan soo dhawow adigaaba naga la sii badnaayo soo arkay oo joogay xilligii iyo halgankii iyo maaragtay dadkii soo wada arkay isoo dhaweynta waxaan u sameeyay walaashin Hani habaryar ku soo dhawow magaalada Melbourne dadkaagii ehelkaagii oo ku jecel uguna faraxsan halgamaa inaad tahay waa ognahay soo jireen ah waliba halgamaa SSC la bilaabay fankeedu la bilaabay al'aana u taagan aan ka harin marnaba xaadirna oo ahayd guushigoo jacade iyo 25 August marka habar soo dhawow oo soo dhaweynayna anagoo ah jaaliyada Khaatumo iyo jaaliyada Puntland iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed oo dhan dhammaan magaaladu waa magaaladaadii dadku waa dadkaagii mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaadba welcome joogna laakiin my sister is back Hani idinka fanaanadii qalasada idin tahay laakiin walaashay macaan waay I'm so happy to see her here today wallahi I'm so excited welcome to Melbourne once again dadka Soomaaliyeed u timid iyo xalfadda ay qabsanaysid kulanka hameenka 12 bisha Saturday-da insha Allah qof walba waxaan leenahay tigidhadiina hore u gata qalasadana garab istaaga kelmadaada aad baan ugu faraxsanahay runtiina waqti idin la qaato inin maxay ahayd idinka sheekeeyo dalkii waxaan soo arkay waxyaabo badan baa jiraan doonaynan dadka la wadaago aan wali chance u helin laakiin habeenkaas insha Allah sheekeyn doonaa waad mahadsantiin dhamaantiin